يمروين يمرتلا كلا وتلامنتي waxaan soo istaagay inaan munaasabada maanta halkan shirkan la isugu yimi aan wax yar ka ilaalo ugu horreyn waxaan idin xasuusinayaa inay munaasabadani daba socotay shirkii ugu dambeeyey ee ururada Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi ee heshiiska lagu soo saxeexay kaasoo ku aadanaa in muddo 6 bilood ka hor la qabto laakiin sababo badan oo muhiim ah awgeed dib ugu dhacay ilaa maanta kuwaasoo ay ka mid ahaayeen heshiisyadii kala duwanaa sida noqoshadii SNM goosashadii ay ku taageereen ururada kale ee waqooyi sida shirka waxaa kaloo ka mid ah shirkii Kismaayo ee beelaha Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen kii Doobley lagu qabtay iyo shirar kale oo muhiim ah ilaa maantana muddo 2 bilood ah wadatashiga ay ururada Soomaaliyeed ku lahaayeen magaalada madaxda iyo dalka dibadiisaba iyadoo xilli uga baahan loo aaday maanta waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay aad u sugaysay adduun weynaha wiisha ku hayay munaasabadani waxay tahay in lagu sameeyo ururada Soomaaliyeed ay isugu imaan doonaan shirweynihi qaran ee ummaddu inta badan sugaysay kaasoo la mudeeyey boqorkana ay tahay magaalada Muqdisho faahfaahintiisa halkan laga hadli doono oo ana rabin inaan ku xeero mudanayaal iyo marwooyin